وحوها هل كان واحد أنقذ إن كتنته دلني يرى محبيستا أهيت هذا عيدا كأسلوب تكمله وحير موياني نهالك إن كتمان وهالك سنة سيدا أو شيء تليها وكان كتبركو أو شيء كوريل حسن هالك سنة تشرشر كوحسوب برنيي دهبور كده هي أساس كده وحبرشداس أولها سريب ود بشير محمد جامع إلهي مدحيسة إيو فكر كيسة بهنور راتيو وحان به لها وآباهر مركب دلك مركب لغا ريبو مدحوينها إيو رئيس الوزراء قرنكو جيسي ودقالمو وباهن يحي جيسي هال أبور بدن بو وباهن يحي جيسي ومدى قلبيدا iyo maskaxdeeda dhisoo u baahan yahay geesi dalkiisa burburay dhisoo u baahan yahay bashiir inta xil oo uu soo qabtay yaani nama soo marin weli meel aanu hurdada ka kicin nama soo marin xilal badan oo dalka u soo qabtay mahadaas ilaahay baa iska leh mahadaas ilaahay baa iska leh لكن وحاله سريج بشير محمد جامع أنا أسلوب هذان هاي أنا ومال في عينه مريسو بنا لك سوقته أو أنا عيلو قبلون لين لا يربحين لو قبتين لكن قرنكا باهي قرنكا بدن وقت حلو الوجرة أنت أمريكا وقبض به هورشان أضمان تهرب فردسان أساس كذي halkan waxa hortiina fadhiya maxabiis Soomaaliyeed ciidan ahaa jiray laakiin maanta ciidankaas lugta kamid ah sida hadda aad indhihiina ku arkayseena maanta dalkuna waa u baahan yahay shalay hadii dad qariban ahaayeen maanta nuuca ay yihiin indhihiina ku arkaysaan juhdi badan lagu bixiyay مسكح بدنا قشي دلال بدنا قلي ما أنت إن لها الدلكة يفيورها الدلكة إن النقدان بان رجينا إن إذا كان قيمين دونا هل كان هذا واحد شوغر لنا يراس قبل يولد سكوت رسيل هو شيء شغاد قارن كوا قول سديد شغاد موابلوني وحنا ملده إلا لما يصير كذا قاعد كوهاي تليها عيدك سورة الصومالية جنرال المهد oo runtii mashruuc kastoon anigu bilowgeeda lahaa ama aan ka shaqeynay oo ka tagay horumar iyo wax qalbiga farxad iga galiya maahane wax dib u dhacaysan jirin wax horumar iyo wanaag si sameeyay maahan haddaan intaas iraahdo dhalinyaradan waa laga sheekeeyay mashruucan haddaan background kaga sheekeeyo mashruuca uu fakaray oo maskaxdeeda iyo fikirkeeda uu lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya asaga yeeray asaga fikirka keenay oo yiri waxaan rabnaa mashruucaas ma fulin karnaa oo dhalinyarada halkaan xabsiga ku jirta wax ma bari karnaa wixii qalaba iyo macallimiin dibadda in loo keenana aniga igu daa saasoo mashruucu ku bilowday qalabkaas ugu jeedaan oo dhan madaxweynaha keenay macallimiintana oo dal darisa oo walaalaheena inooga yimidna madaxweynaha ayaa bixiya mushaarkooda joogtada bil kasta saasoo mashruucan ku bilowday dhalinyarada qaar ka mid ah cafis baa u yimid oo waa la sii daayay caawa maantayto waxaan uga farxinayaa inta kalena processkooda inuu socdo haddii ilaahay idmo 60 guurada kadibna aan rajaynayno inay waalidkood iyo dadkii jeclaayeen la damaashaadi doonaan shaqana la siin doono sidii kuwii ka horreeyay taasna waa fariin uu madaxweynuhu Jamhuuriyadda soo faray dhalinyaradan qiimaha badan ee maanta halkaan runtii nagu tustay xusuus orkestraha qaranka sida la sheegay wasiir Saadiq iyo xubnaha guddiga xuska 60 guurada xorriyadda iyo midnimada dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaa sidaa uu Bashiir sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in halkan
tiyaatarka qaranka waan weli furnayn laakiin aanu quruxda uu leeyahay iyo baahida aanu qabno awgiis marmarka qaarkood waxyaalaha tijaabada ku samayno inaanu maanta ku daawanno kooxdan orkestraha qaranka oo sidaa la sheegay wax fiican oo aad u fiican ay noo codaynayna tusay isla markaana aad dad markii hore xabsiga dhexe ku tegay qaab cadaaladeed laakiin maanta ah shaqaale dawladeed iyo xubin weyn oo ka mid ah qaybta fanka iyo muusikada Soomaaliyeed wax weyn dhalinyarta waxaan leeyahay runtii wax qiimo leh baan tuseen waa laba farxadood ama saddex farxadood bay idin tahay mid waxa weeye waxa ugu weyn inaad xornimo heshaan oo waxa ugu weyn qofela oo ay tahay mid labaadna inaad shaqo heshaan oo shaqaale noqotaan tasaddexaadna inaad nagala qayb qaadataan xuska 60 guurada oo dabaaldega nagala qayb qaadataan marka aad iyo aad baan idinku dhiirigelinaynaa runtii 60 guuradan aad bay uga duwan tahay feesooyinkii hore oo qaarkood inta badan anigu qaar badan oo kamid ah anigu aan ka ahaa gudoomiyaha qabanqaabada 60 guuradan sidii aanu samayn jirnay xaflad ma aha waa ka duwan tahay kuwii hore xafladu baanu qaban jirnay iyo heeso tan waa dalkii oo isbedelay waa dalkii oo dib loo dhisay waxaad arki doontaan oo warbaahinta qaranka iyo warbaahinaha kale ee dawladda dalka kala socon doontaan waxqabadka dawladda nabad iyo nolol ee intii ay jirtay oo ay kamid tahay meeshan aan maanta joogno tiyaatarka qaranka iyo dhismayaal kale oo waaweyn oo aad arki doontaan oo la furi doono toddobaadka xorriyadda oo ay kamid tahay in maanta fanku dhismay markaas 60 guurada oo waliba coronavirus wax badan oo aan ummadda tusi lahayn dib nooga dhigay way ka duwan tahay xafladihii hore waxaan ku faraxsanahay dawladdeenu inay soo gaadhay heer ay dalkeeda dib u dhisato dawladnimadeeda dib u xoojiso adduunka dawlad la siman ama kuwa badan ka sistem fiican oo ka xoog badan dib looga dhigay dawladda qarankii Soomaaliyeed bulshadii Soomaaliyeed dhaqaalihii la kabay oo aad aragtaan dawladdu maanta inay isbixinayso oo ay awood u leedahay dadka u shaqeeya inay mushaharka siiso isagoo ka badan ka shirkadu bixiyaan shaqo kasta oo levelka isku midka ah ama eega dawladda ayaa ugu badan mushaharka la bixiyo oo aad arkaysaan inaynu soo ceshanay xaggii amnigii oo maanta alxamdulillah inkastoo weli meelo dalka ka mid ah ay kooxaha argagixisada ahi si uu saameyn ugu leeyaan bulshada ku waxyeeli karaan haddana ciidamadeenu inay awood u yeeshaan inay ka adkaadaan marka waxaa loo aqoonsaday sanadkan 2020 sanadkii dib u guulaysiga iyo dawladda Soomaaliyeed inay la mid noqotay wax dhismo 20 sano oo marba la dhisayay inay maanta la mid tahay dawladaha caalamka oo ay tahay dawlad bixisa amniga dalka inay sugto awoodda dawlad inay dhaqaalaha dalka ama dadka u shaqeeya noloshooda bixiso ay bixiso awoodda dhaqaalaha dalka dib u soo celiso arkaysan deen cafiskii inay oo hadda dalku maalgashi uu diyaar u yahay oo la maalgashan doono dawlad la mid ah dawladaha Afrika maanta heerkaas si buuxda u hanatay mas'uuliyadda dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa halkaas aan gaadhnay maanta sanadka 2020 marka aad iyo aad baa mahadsantiin taliyaha iyo ciidankiisa waa u mahadnaqaynaa